Faadumo Axmed Ibraahin waa 15 jir dhulyaal ah waxay 8 sano ku xanuunsanaysaa duleedka magaalada Muqdisho ee ceelasha biyaha si aan wax badan ugu ogaado bulshadana ugu gudbiyo waxa telefoonka igula soo xiriiray aabaheed anigoo shaqadeeda maalinlaha ah ee Muqdisho cable ku jira waxayna dhaxmaray hadaladan Halo وعليكم السلام ورحمة وكما أحمد إبراهيم يا أحمد إبراهيم هاي محنقو قبطة ولا أحمد بيع ها وانيقا وعاي شوف قبل شيء ومدح لو وجهه ومدينة كل ما يروحها ولا فاق أنا بقى حالك يجي بقى يا قاعد بلي هذا وقرتي قبلها halkee ku xanuunsanaysaa marka أنا جبيها نلو ودي أقول أنا جبيها waan gartay gabadha waa mise jir gabadha waa 15 jir adiga maxaa u tahay marka abeeda Axmed Ibraahin Faadumo Axmed Ibraahin ha gabadha marka mise sana ay xanuunsanaysaa ilaa 10 sano waa tahay adeer hadda ayaan ku soo gaarayaa waxaan u taaganahay in aan mar walba bulshada aan u adeegno waan maasantaa waan ku soo gaaraynaa إن شاء الله دراي. واتاي داود يال waxaa telefoon iga soo dhacay ceelasha biyaha anigu xafiiskayga ku shaqeynaya ayaa waxay soo wacay gabar inala lagu la gacmo la aabaheed wuxuu iga codsaday in aan ceelasha biyaha imaado san gabadhaas dhuliyalkan warbixin aan ugu diyaariyo hadaba daawud yaal ceelasha biyaha ayaan u socdaa oo masaafo dabcan aad u dheer ii jirta intaan halkaas aan u socdo dabcan waxaan qaadan doonaa bajaaj oo runtii halkan shirkadda banaankeeda diyaar ku ah waxaan aadayaa sida hore kugu sheegay ceelasha biyaha oo aan filayo masaafo aad u dheer inay jirto hadaba daawadayaal idinkana bal inala socdo واتهاي داوديال waxaan soo socday muddo ku siman 40 daqiiqo waxaan ka soo baxay xamar ceelasha ayaan joogaa runtiina waxaan filayaa in tiyarta aan soo soconay in idinkana safarka gaaban aan naga qayb ahaateen hadaba daawadayaal sidaan hordhacaayna markaan ka soo baxay xarunta idin sheegaba waxaan ku suganahay guriga gabadha yar ee xanuunsan oo haatan aan soo gaaray guriga ayaan galayaa haddaba markaan guriga gudaha u galay waxay nehigu qabteen muuqaal qofeed aad u liitaa saati waa beed kana jabay qof ahaan gabadha ayaa ah mid maskaxiyan jiran tabar daran xubnaha kale jirkana aad aan u dhaqaaqeen sida gacmaha iyo lugaha kuwaas oo isku soo laabtay sidoo kale raashin ahaan waxay u qaadataa caano kaasoo isagana lagu siiyo silingo Aaba Axmed Ibraahin muddo muusan shaqeyn maadaama waqtigiisa badanaa uu ku qaatay xanaanada gabadha mana jirto ehel iyo qoys iyo shakhsi garab taagan isaga mana jirto maalin caafimaadka gabadha qof ku caawiyay Aaba Axmed ayaana codsaday qof walba oo muuqaalkan soo gaaro inuu caawiyo in muddahana uu muqbaayaha ka xishoon jiray hase ahaatee maanta ee danta biday inuu bulshada Soomaaliyeed uu soo hor istaago maanta horsaashadu kama soo muuqan ummadda Soomaaliyeed waxa ka codsanayaa waxa waa gabar Soomaaliyeed anigu walaalkiina ahay waa ku dulbaabay waa ku shaqo seegay noloshii cariir laga gashay waxa ka codsanayaa in lagu quusto dalkaas oo maanta gacan lagu siiyo ummadda Soomaaliyeed oo muslimiinta ah oo jannada firdawsa oo tartamaysa ilaahay dadka wax u baahanaysa waxa ka codsanayaa in gabadhaas dadteed maanta ay ku kaalmeeyaan oo gabadhaas caawiyaan oo wax u qabtaan caafimaadkeeda wax u qabtaan waa tahay daawadayaal waxaan ku suganahay gurigii gabadha xanuunsaneed ee 15 jirka ah ee dhuliyalka sida wada daawateenba aabaha gabadha dhalay runtii
si dareen iyo qiiro iyo bil'aadanimo ku jirto ayuu walaalayaal u hadlay wuxuuna dhammaantiin meel walba aad joogtaan oo muuqaalkan idinka soo gaarayo inaga codsaday in gabadhan Soomaaliyeed ee gabadhiina ah runtiina aad waalid ku wada tihiin walaashiina saqiirtana inaad wax u qabataan waxaad gabadha maanta aad u qabataan maalin ayaad ku baxsan doontaan in la isku ansaxaafalo la isku naxariisanay diinta islaamka ayaa qabta runtii waa dareemi karaysaan qof siliinga wax ku cuna aan seexanin maskaxda loogu jiro gacmihii soo laabteen lugihii soo laabteen sinta nabar ugu soo baxay aabaheedna maalin habeen waqtigeedii ku seegay waa dareemi kartaan haddaba walaalayaal muuqaalkan si naxariis leh dabcan wuxuu aad ka daawan doontaa Muqdisho Cable TV qof walbo muuqaalkan Muqdisho Cable TV ka daawada si naxariis leh haddaad waxba u qaban karin share garay si qof kale oo waxaysta ama hanti haysta ay u gaarto maalinta qiyaamo waxaad maanta aad qabato ayaad ku baxsan doontaa